asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu fiidnimo wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aada joogtaan iyo si kastoo aad ii maqlaysaan sidaad horey ula socoteen taliyihii abandulka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa saakay la wareegay gacan ku haynta magaalada marko ee xarunta gobolka shabeellada hoose iyadoo inta badan warbaahinta dalku ay hadal hayeen warar sheegaya in abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cabdulaahi cali caanood uu la goostay gaadiid iyo ciidamo ka tirsan dowladda ayaa waxaa arintaasi markii ugu horreysay ka hadlay jenaraal caanood abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka oo arintaasi ka hadlayay ayaa sheegay inuu aada ula yaaban yahay halka laga keenay warkaasi jenaraal caanood ayaa beeniyey inuu goostay oo uu wado abaabul jamhadaysan waxa uuna sheegay inuu u baxay howl markii horeba qabya u ahayd jenaraal caanood mar ay b b c du wax ka weydiisay inuu ka carooday magacaabista abaanduulaha cusub oo uu doonayo inuu dagaal jamhadayn ah bilaabo ayuu yidhi waxaasi waxba kama jiraan waa wixii soomaali ku hoogtay oo ku ba'day ilaahayna naguma jarribo waxaa kaloo jenaraalku waxba kama jiraan kasoo qaaday inuu ballidoogle kula kulmay askar maraykan ah sidoo kale jenaraal caanood wuxuu sheegay inuu maanta dagaal ku dhex maray magaalada marko iyaga iyo al-shabaab kaasoo uu sheegay in ay iyagu bilaabeen balse al-shabaabna ay isdifaaceen iminkana ay wadaan howlgallo kale jenaraal caanood oo hadalkiisa sii watay ayaa tilmaamay in dagaalku uu ahaa mid sii qorshaysnaa ka hor intaan la magacaabin abaanduulaha cusub hase yeeshee ay soo afmeeri doonaan maadaama ciidamadu ay maanta si buuxda ula wareegeen magaalada marko geesta kale wuxuu intaasi ku daray jenaraal caanood inuu xilka wareejin doono marka howlgalka lasoo afjaro dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada addis ababa ayaa iyaguna sheegaya kulantan iyo 8 agoosto magaaladaasi addis ababa uga socday xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia in lasoo gabagabeeyey sida uu sheegay gudoomiyahooda cusub oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Ethiopia Ahmed Shide waxaa lagu go'aamiyey in xisbiga laga saaro xubno lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen rabshadihii dhawaan ka dhacay deegaankaasi shir jaraa'id oo uu Ahmed Shide ku qabtay Addis Ababa kadib gabagabadii kulankaasi ayuu ku sheegay in 3 xubnood laga saaray guddiga fulinta 8 xubnoodna laga saaray golaha dhexe ee xisbiga tallaabadaas ayuu ku tilmaamay in ay tahay go-aan siyaasadeed oo xisbigu ka qaatay dadkaasi oo wax laga saarayo rabshadihii horaantii bishani ka dhacay deegaanada DDS waxaa shirka la fadhiyey madaxweynaha cusub ee DDS Axmed Cabdi Maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga waxaa kaloo intaa ku daray in ay jirto tallaabo xagga sharciga la xiriirta oo laga qaadayo dadka dambiyada geystay intii ay rabshaduhu socdeen kuwaasoo ay hay-adaha dambi baaristu iminka gacanta ku hayaan ma uusan sheegin magacyada xubnaha laga saaray xisbiga waxaa la filayaa in ay qabanqaabiyaan shir weyn oo ay isugu keeni doonaan dadka deegaanka laakiinse ma aysan sheegin goorta uu dhacayo halka uu ka dhici doono iyo cidda ka qayb geli doonta hadalka wasiir Axmed Shide ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada Addis Ababa ay sidoo kale kulan u fadhiyaan gudoomiyayaasha 11 gobol ee DDS iyo 5 xubnood ee gobol kasta ugu sarreysa xagga maamulka iyo sidoo kale wasiirada iyo wasiira ku-xigeenada maamulka DDS wararku waxay sheegayaan in iyaguna ay ka arrinsanayaan sidii meel loogu yeeli lahaa rabshadihii dhacay iyo ciddii mas-uuliyadda qaadan lahayd wararka iyaguna naga soo gaaraya deegaanada ismaamulka Soomaalida waxay sheegayaan in shirar waaweyn ay ka dhacayaan magaalooyinka ay ka mid tahay Jigjiga oo ah halka ay shirarka ugu badani ka socdaan Dhagaxbuur Qabri Dahar iyo Goday shirarkaasi ayaa la sheegay in ay ku salaysan yihiin sidii loola jaan qaadi lahaa isbedelada haatan socda waxaana dib ugu soo laabanaya magaalooyinka dadkii markii hore uga cararay khilaafaadka siyaasadeed iyo mabaadi'da ay aaminsan yihiin
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkii naga soo gaaray Soomaalida. Hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.